iyadoo ay muddo kooban ka hadhay dhammaadka bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa waxa si weyn looga dareemayaa magaalada Gabiley ee xarunta gobolkani Gabiley u diyaar garowga munaasabada Ciidul Fidri waxaana booqanay maanta qaar ka mid ah suuqyada lagu gado alaabaha kala duwan sida kabaha iyo dharka isla markaasina gada alaabaha iyagu loogu diyaar garoobayo munaasabada Ciidul Fidri qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo mulkiilayaasha meheradahaas ayaa waxaanu wax ka weydiinay sida looga iibsanayo alaabaha kala duwan ee ciida iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ciidan iyo ciidii hore iyagoo ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa sida bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan waxaan ka saaray dadweynaha gobolka Gabiley iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo leenahay ciid mubaarak waxaan kaloo dadweynaha ugu bashaareynay Gabiley inay alaabta ciid diyaar tahay gabadha ay tahay alaab quality oo qiimaha aad u yahay oo keenay dhammaan waxaan ku dhiirigelinaynaa inaan isku fiican sameyn doono gaar ahaan dukaanka Gabiley supermarket waxaan si gaar ah u salaamay qadarin iyo qiimo badan كاست تي في يا ستار تي في بس عندنا كاسنا وش كاسا بشر سومالي لان يقال هم بدل يرسل هذا فكر عندي هذه الدبلاتين الرحمن الرحيم هلكن waxa weeyaan taani supermarket waxaan dadweynaha reer Gabiley ugu baaqaynaa inaan u keenay dharkii ciido noocyo badan oo kala duwan leh sida dharka ciyaalka kuwa ragga kuwa dumarka noocyo badan waxa leeyahay ciid mubaarak inkasta ciidi wax yar ka arsantahay hadana waxa leeyahay ciid mubaarak aad iyo badan salaamay warba maalinta ka sii dhameysay ciid ay ku sii dhawaataba qiimo dhimistu way sii badanaya waxaan u baaqnaa dadku inay xaga iyo taani u soo talaabsadaan dhar tayada oo kuwaala tilana oo ugu soo hagaagaysta xaga iyo taani ku sayid aad iyo aad u fiican tahay sanadka aad iyo aad u fiican tahay sanadka yarka way macnaha sanadka kale iyo kale iyo way بشكل كثير بجرا هذا يبدو بشرا سبعة هذا هذه أيضا ديسكونت مثلا تدخل الحيدان تدخل كير كاو ورمت لك الله ولا سهل يبقى في عن قال لهم هذا فرد بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu Axmed Xasan Sheekh Ibrahim meherad waxaan joognaa bacdayaashii gaar ahaan meherada Sayid Ismaaciil Fali magacaygu uu yahay bacdaha durdu ciidu iska gabagabo waxaan leenahay macaamiisheedii soo dhawaada qiimo dhimis ballaaran ma sameynay dadkii ciido dhameystiran ma hayna hadii yihiin hadlayeenaba cabaayadii dadkii ciidan dhamaantood kabihii waxaan leenahay sidaa iyo ciid mubaarak salaatu wassalaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam halkan waxaan ka salaamayaa saxaafadda Star TV iyo Kalsan aad baad mahadsantihiin saaka wayna soo booqdeen waa goobtii bacdayaasha gobolka Gabiley ee caasimadiisa waana soo dhaweeyna saxaafadan aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa waxa ay nagu soo booqdeen diyaar cilowga hadaan warbixin yar kooban ka sii bacdayaasha diyaar garowga si fiican buu u socdaa waxa weeyaan dadkuna si wanaagsan oo niyad fiican oo qalbi wanaagsan ku ciidayaan nabad iyo barwaaqo oo rajaynaynaa dadka gobolka ku nool ama degmada khaasatan wax naga iibsanayeen mahad cilmi si wanaagsan ugu iibinaya in yar hadaan ka warno sanadka waxa weeyaan waxa iska yar dhaqaalaha wadanka ama ka gobolka oo anagu dad beeraley aan nahay oo beerihiiba sanadka aan noo bixin waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Chuba telefishinka caalamiga Kalsan TV magaalada Gabiley